al-shabaab oo burbur xoogan uu ku yimid awoodda dawladda federaalka Soomaaliya ay saartay al-shabaab ee dhinaca ciidamada kala duwan duqaymaha cafinta cunaqabataynta ayaa sababay inay maanta aad u kala qaybsamaan ururkaasi waxaa la hakiyay sanadkan weeraradii iyo qaraxyadii al-shabaab ay ka fulin jireen gobolada dalka iyo magaalada Muqdisho sidoo kale ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa dhammaan 17 degme ee magaalada Muqdisho u qaybiyay dhalinyaro ka badan 2500 kuwaas oo awood saaray sidii ay u ciribtiri lahaayeen kuwii dili jiray dadka culumada ganacsadana baada ka qaadi jiray dhalinyaradaasi ayaa fuliyay howlgallo xilli walba iyagoo inta badan aan la ogeyn qorshayaasha u degsan laakiin meesha ka saaray gabi ahaanba dilalkii sida joogtada ah xamar uga dhici jiray haddaba markii ay al-shabaab waayeen awoodii ay ku lahaayeen Muqdisho waxa meesha ka baxday dhaqaalihii ay heli jireen kuwaas oo ku tiirsanaa canshuur baad ah oo ay ka qaadi jireen cid walba oo u nuglaata maxaa soo dadajiyay burburka al-shabaab ee waqtigan khilaaf xoogan oo hareeyay hoggaanka ururkaasi kuwaas oo dhawaan u kala jabay laba qaybood oo kala ah qaybta uu hogaamiyo Mahad Karatay iyo hogaamiyaha ururka al-shabaab Abu Ubayda oo xaalad caafimaad darro hayso oo aan sii wadi karin hoggaanka al-shabaab dhaqaalihii ay sida tooska uga heli jireen ganacsatada Muqdisho iyo beeraleyda ay dhulkooda xooga ku haysan jireen oo meesha ka baxday kadib markii Muqdisho gabi ahaanba si toos ah looga afjaray amaradoodii iyo shabakadihii u shaqayn jiray iyaga iyo Daashba dhinaca kalena beeraleyda ayaa si cad uga soo horjeestay amarada al-shabaab taasoo sababtay inay isku dhacaan beeraleyda iyo ururka al-shabaab dagaaladii ay ciidamada dawladda ku bartilmaameedsanayeen deegaanada ay ku sugan yihiin oo sii xoogaystay iyo weeraro isdaba joog ah oo lagu hayo duqaymaha dhinaca cirka ah ee ay diyaaradaha Mareykanku ku hayaan horjoogayaasha ururka al-shabaab shacabka Soomaaliyeed oo dareemay dhagarta ay al-shabaab u maleegayeen si muglana oo la shaqaynaya ciidamada sirdoonka iyo kuwa gaashaaman ee howlgallada wada tusaale waxa kuugu filan sidii ay shacabku u fashiliyeen una sheegeen dhagarqabayaal ku sugnaa degmooyinka Wadajir Hodan Yaaqshid iyo Dayniile dhalinyaradii ku biiri jirtay al-shabaab oo gabi ahaanba meesha ka baxday kadib markii maxkamadda ciidamada qalabka sida ay si xawli ah u fulisay xukunka iyo toogashada qof kasta oo ku eedeysnaa al-shabaabnimo iyo dhagarta ummadda Soomaaliyeed waxaa sidoo kale jira dagaalamayaal al-shabaab ka tirsan oo doonaya inay isku soo dhiibaan dawladda kuwaasi oo hadda wada qorshayaashii ay uga bixi lahaayeen aagaga ay ku jiraan marxaladan ayaa soo dadajisay inuu burbur xoogan ku yimaado awoodii al-shabaab ay lahaan jireen dhowr sano ka hor